bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. subax wanaagsan. halkan waa wararka 24 saac kuna soo dhawaada wararka aan idinayno kuwoodii ugu waaweyn. warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qorshe ka dhan ah madaxweyne farmaajo oo ka bilowday imaaraadka iyo saraakiil horboodaysa kenya oo walacsan iyo loolanka jabuuti oo noqday mid ka adag sidii la filayay. goorta sida rasmiga ah loo furayo garoonka istaadiyo muqdisho oo la shaaciyey. meel ka mid ah beelaha galmudug oo la musuqmaasuqay iyo musharax u taagan galmudug oo arrimahaas ka dambeeyey. dowladda kuuba oo ka warbixisay xaalada dhaqaatiir al-shabaab ay afduubteen ee ku sugan koonfurta soomaaliya. wararka dibadda ee aan idin hayno waxaa ka mid ah trump oo qalqal wajahaya kadib markii koongareesku ay ka fadhiisteen codeynta xilka looga qaadayo. waxaad daawateen qodobadii warkeena saakay ugu waaweynaa. waa subaxnimo taariikhdu ay ku beegan tahay 19 bisha 12 December 2019. haddii aad ku cusub tahay janalkan subscribe dheh si aad u hesho hogaha daasoone halkan aan kusoo gudbino kuna soo dhawow warkeennii oo faahfaahsan. magaalada abu dubai ee dalka isku taga imaaraadka carabta waxaa ka bilowday qorshe ka dhana madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo la rabo in uusan dib ugu soo laaban hogaanka dalka sida uu sheegay faysal cali waraawe. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe oo ku sugan magaalada abu dubai ayaa sheegay in uu dalka imaaraadka carabta uu joogo qorshe ka dhan ah madaxweyne farmaajo kaasi oo uu sheegay inuu yahay mid farmaajo iyo kooxdiisa laga badbaadinayo guud ahaanba dalka soomaaliya. faysal ayaa xusay in ay la kulmi doonaan jaaliyadda soomaalida ee ku sugan dalka imaaraadka carabta waxaana la sheegay in ay ka hadli doonaan sidii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uusan uga soo laaban lahayn talada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo hadda isaga uu maamulayo. qorshahan cusub ee uu shaaca ka qaaday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud ayaan waxa aydeen loogu jeediyey dowladda federaalka ah ee waa dowladda imaaraadku in ay wax ka og tahay arrintan iyo sidoo kale in kale. xiriirka imaaraadka iyo soomaaliya ayaa aada u xumaa dhowaan waxaana la rumaysan yahay in imaaraadka uu ka mid yahay dalal doonaya in uusan soo laaban madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. xiriirka labada dal oo markii hore ahaa mid wanaagsan ayaa xumaaday kadib markii soomaaliya ay ku dhex milantay xiisada wadamada khaliijka ka dhexaysay kana sii dartay markii dowladda soomaaliya ay 8 abriil qaabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollarka mareykanka oo imaaraadku ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee muqdisho. toddobaad kadib 15 abriil 2018 dowladda imaaraadka carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada soomaaliya iyada oo ka jawaabaysa lacagta ay qabsatay dowladda soomaaliya. tan iyo muddadaas ma jirin wax xiriir oo muuqda u dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyadoona la sheegay hadda in dowladda imaaraadku ay wax ka og tahay qorshaha siyaasiyiintu ay diyaarinayaan ee lagu doonayo in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uusan dib ugu soo laaban talada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. kenya ayaa waxaa musharax rasmi ah ee ururka midowda afrika ee kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe. hase yeeshee taasi jabuuti kama joojin in ay loolan adag ku gasho kuraskigan. kenya waxa ay markii hore rumaysneed in aysan jabuuti kala kulmi doonin loolan adag oo ay kursigan hanan doonto bisha juun 2020 marka ay dhacdo codbixinta. hase yeeshee sida uu qoray wargeyska daily africa ee ka soo baxa wadamada africa ayaa dadaalo diblomaasiyadeed oo xogagaal ah uu ka soo xigtay in jabuuti ay loolan adag la gelayso kenya. brofesor ka tirsan wadanka south africa waxa uu sheegay in jabuuti iyo sidoo kale kenya ay ku tartamayaan islamarkaana jabuuti ay isku diyaarinayso
in loolan adag ay la gasho dowladda Kenya oo doonaysa inay ku guulaysato kuraas ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Kenya ayaa dadaalo badan arrintan ku bixinaysay iyadoona had niyad jab ay la kulmayso. Warbixinta ayaa tiri haddii Kenya aysan ka hor codbixinta xaqiijin taageerada Mareykanka iyo China iyadoo Faransiiska uu taageerayo Djibouti, waxa ay la kulmi doontaa lama filaan marka doorashadu dhacdo bisha Juun 2020. Kunama filna oo keliya in taageerada midowga Afrika ay haysato Kenya. Dhismaha garoonka Stadium Muqdisho ayaa ku dhow in la dhammaystiro, waxaana la filayaa in dhowaan daaha laga qaado laguna qabto tartamo kubadda cagta ah sida ay sheegtay wasiirada dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye. Wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaartooy ka yimid dalka dibadiisa iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, waxaana qiimeeyeen dhismaha iyo xilliga uu dhammaan karo. Saynab Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ayaa warbixin kooban ka siisay wasiirada dhalinyarada ciyaaraha iyo mas'uuliyiintii la socotay. Sidoo kale ciyaartooyda ayaa waxa ay qiimeyn ku sameeyeen heerka garoonkan. Basma Caamir Shekeeti ayaa sidoo kale iyaduna waxa ay dhankeeda ka hadashay sida maamulka gobolku ay uga go'an tahay in garoonkan la dhammaystiro. Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay dhankeeda sheegtay in dhismaha dhowaan la soo afjari doono isla markaana bisha Janaayo 2020 daah laga rogi doono, isla markaana garoonku ay ka soo qaybgeli doonaan mas'uuliyiinta ugu sareysa jamhuuriyadda. Stadium Konis ee Muqdisho oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn qaaradda Afrika ayaa la dhisay 1998 waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay u ahaa mid burbursan oo ay degnaayeen ciidamo amisooma. Nabadoono ka tirsan jufada reer Maxamed Cabdi oo ka tirsan beesha Saleemaal ee Galmudug ayaa ka sheekeeyay musuqmaasuq lagu sameeyay saxiixa ka tirsan odayaasha soo xulaya xildhibaanada Galmudug, waxaana la sheegay in wax laga bedelay kii 2015. Nabadoonada ayaa ka mid ah Mire Yuusuf Jimcaale iyo sidoo kale Cabdi Ismaan Wehliye, waxaana ay qabteen in musharax Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu si hoosa ugu dhaadhiciyay in nabadoonadaas la bedelay, odayaashuna aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee maamulka Galmudug. Cabdulaahi Maxamed Carab Jabuuti ayaa la sheegay in la bedelay kadib markii uu xanuun u yimid magaalada Muqdisho, iyadoo oona ninka cusubna aan lala socodsiin dadkii uu ka tirsanaa labada jufadood ee beeshan lahaa. Mire Yuusuf Jimcaale oo arrintan sharaxaya ayaa waxa uu sheegay in arrintan uu ku dambeeyo musharax Axmed Kaariye Qoorqoor oo u taagan xilka madaxweyne ee Galmudug, laguna tiriyo musharaxiinta ay taageerto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya doonayana in uu qabto xilka madaxweyne. Madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada Kuuba oo ka warbixinayay xaaladda dhaqaatiir u dhalatay dalkaas oo Al-Shabaab ay qafaasheen ayaa waxa uu carabka ku dhuftay inay caafimaad qabaan. Waxa uu sheegay in 12 Abriil 2019 laga afduubtay magaalada Mandheera, gaar ahaan meel u dhow xadka Soomaaliya. Mas'uuliyiinta amniga oo faahfaahin kooban bixiyay ayaa shaaca ka qaaday in howlwadeenada lagu haysto meel ka mid ah Soomaaliya. Labada dhakhtar ayaa ka mid ah 100 u dhalatay Kuuba oo dowladda waddankaas u soo dirtay Kenya si ay howlo caafimaad uga fuliyaan deegaanada miyiga ah ee gobolada kala duwan ee Kenya. Kuuba ayaa hore u sheegtay in kooxda ay haystaan 2 dhakhtar oo ay qabteen isla markaana ay ku xukumeen in la bixiyo lacag dhan 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka.
al-shabaab inta badan waxay afduub u geystaan dhaqaatiirta iyo dadka ajnabi ah ee gudaha usoo gala gobolada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya. guud ahaana warkeennii subaxnimo waanaga intaas. haddii aad ka cusub tahay janalka subscribe si aad u hesho xogaha halkan aan kusoo gudbinno daawade waana mahadsantahay. soo dhawow.